أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارتا إلى سعوتاي إذل كيمبا waxaan barnaamijka aan halkan ka soo wada maanta waxa uu yahay barnaamijkii ahaa biyo dhaqaale abuurka haddana biyo abuurka oo biyaha markaas sidii aan ku marka koowaad biyo inaan tacbano kaliya aan samayno oo laba nooc u samayno qaab macnawi ah iyo qaab xisi ah. qaabka macnawiga ah iyo qaabka xisiga oo kala ah in aad ficil la timaado oo aad wax abuurto si markaas waxaas abuurkaasi ay u shaqeeyaan. waan aniga ka soo wada hadlay aniga oo xagga quraankana daliilo ka soo qaatay maxay tahay xagga cilmiga sayniskana wax badan ka soo xigtay. xagga waxa ku soo haray marka qaabka ah biyo dhanka kala oo xisiga waxay tahay in aad samayso qaab ah niyad nadiif ah inaad la timaado oo qofku uu yahay macnaha bulshadu marka ay u bataan bulsho nadiif ah ilaahayna markaas uu u dejinayaa oo wanaag u siinayaa oo waxa ay noqonaysaa marka ay dad ilaahay ku xiran oo ilaahay u soo toobad keeno oo ku xiran ilaahay ay noqdaan oo dhexdooda maaragtay xalaal isu aan cuqdad isu qabinin qofna qof kale xaqiisa qabinin qofna qof kale dagaal u qabinin markaas haddana waxay noqonaysaa in uu ilaahay uu markaas caawinayaa waxa ay noqonaysaa in ay toobadda ay ku dadaalaan ilaa waxa uu quraankiisa ku leeyahay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا. intaas marka ay sidaas u tahay intaas aad ka fahmaysaan waxa weeyaan qof walba waxa qalbi wanaag iyo calool wanaag marka aad la timaado waxa aad noqonaysaa in uu ilaahay ku caawiyay marka adigu aad ficilkii la timaadana haddana ilaahay baa ku caawinaya. anoo halkaas marka sii socdaa waxaan ka hadlayay biyaha oo ilaahay uu wax walba noloshooda uu biyaha ka sameeyay waa markooda xageebay kala jiraan baan iri waxaan soo iri inay ku jiraan cirka iyo dhulka laakiin cirka iyo dhulka haddana xagee uga sii kala jiraan waxay ku jiraan hawada waxay ku jiraan webiyaalka waxay ku jiraan harooyinka qararka maxay tahay toobiyaalka yaryar ice caps waxa la dhaho meelaha oo baraf fariista annaga nooma joogtee glacier waxa la dhaho ayagana oo meelaha ay qaboobaha biyaha ka samaysmaa markay melt noqdaan ay qalalaan ay biyo noqdaan waxa ku jira marka annaga ugu badan ground water waxa la yiraahdo ay ku jiraan waxay ku jiraan aquifer ground water waa dhulka marka dhulka hoostiisa oo hoostiisa oo dhexe ah waa anigii iri dhulka hoostiisa dhulka korkiisa dhexdiisa iyo hoostiisa ayay kala yihiin sida hawada korkeeda hawada dhexdeeda hawada dhow iyo hawada dhexe iyo hawada sare aan u kala irin iyo markaas badana sidoo kale ay kala tahay. waxay kale ku jiraan markaas meelaha aquifer la meelo hoose oo ilaahay noogu kaydiyo biyaha oo marka intii roobku noo da'ay intaan si isticmaalayno in kale ilaahay meel noo sii dhigaa oo khaanad kale noogu sii jirta kuwaas aquifers baa la dhahaa halkaas ay ku jiraan meesha ay ku jiraan la dhahaa intaasoo dhan markay ku jiraan yay kaloo ku jiraan xagee kaloo ku jiraan waxay ku jiraan adiga dhexdaada biyo kugu jiraan adiga keliya maaha waxay ku jiraan waxartaada iyo nayshaada biyaha ku dhex jira oo dadkeennii horeeto qaarkood markay oomaan geela ayay biyo ka dilacsan jireen oo biyo ka cabbi jireen calooshiisa marka intaa keliya maaha wax kasta oo noolaa biyaha ku dhex jira jirkaaga xubin kasta oo ka mida marka waxaa ku jira biyo biyahaas ayaa meel walba marka yaallo ilaahayna dadka kuwii awoodooda ka isticmaala caqligooda iyo cilmigooda isticmaala oo biyahaas kaydsadana ilaa wuu la garab galayaa kuwa kale laftigoodana maadaama ay dad iska garaad yar ay yihiin run ahaantii waxa uu ilaahay u samaynayaa in uu u dhigo biyaha meel ugu sii kaydiyo meelaha sida aquiferiska iyo soil moistureska waxa la dhahaa iyo ciidda laga riiqayo oo biyaha ciidda kasoo miirmaya kuwaasoo dhan halkaas u yaalaan marka biyuhu waxa ay ka yimaadaan marka ground waxaan ka soo hadlay biyaha atmosphere-ka ku jira hawada kuwa ku jira oo roobka ah aniga oo soo sheegay roobka in aan diyaarsan karno aan daruurta abuuran karno diideedana
u diyaar garoobi karno oo dadaalkeena aan la imaan karno sidaas oo si cilmiyan ah qur'aankana waafaqsan hore aan soo sheegay hadda waxay tahay marka biyihii dhulkay galeen annaga waaba iska soo kacyo deenba marka ay dhulka yimaadaan waxaa la dhahaa ground water waxay usi kala baxaan markaas haddii ay confined zone ku jiraan iyo unconfined zone meel oo la xanibay ama dawlad leedahay ama waxsaas la qabtay hadday ku jiraan iyo haddii kaleba koryoosba kuwa aan meel oon xanibnayn ku jira xataa oo seeraysnayn laftigooda ilaahay baa marka meel kusii xifdinaya meeshaas ilaahay kusii xifdinaya waxay kala yihiin soilka carrada inay ku xifdisanaato carrada marka ay ku xifdisanaato carradu waa xaggee marka carradu waxay noqonaysaa waa meesha la qodo ilaa dhudhun inta la qodo oo kale weeyaan dhudhunkaas meesha loo qodo oo geedweynaha xididkiisu inta uu gaaro ayay biyahaas fadhiyaan meeshaas waa kaydkaas markay halkaas ku fadhiyaan haddana waxaa jira kayd kaleeto oo ay sii gaaraan oo micnaha qayb kale ay kaga yimaadaan kaydkaas qayb baa biyo kale ku imaan kara oo la dhaho vados biyaha la dhaho oo ah biyo micnihi ama socday ama meel intay galeen ay meeshii ay ku degan yihiin laakiin ay suurtagal tahayba inay si dhaqaaqaan ama badanaa meel kore ka soo dacay vadoska la dhaho iyo kuwa intermediate la dhaho iyo kuwo kale oo saturated water la dhaho biyahaas oo dhan baa meelahaasay ku kaydsan yihiin oo ilaahay uu ku hayaa dadka meelahaas ay biyuhu ay uga yaryihiin dhulka oo barafleyda joogana glacier water baa iyagana jira oo meelaha oo qabooba ay ugu kaydsan yihiin ama ice water la dhaho ice caps la dhaho oo meeshaas ay ku jiraan ayaa waxay tahay marka ay abaar noqoto buu ilaahay biyahaas uu u qallajinayaa markaasay u soo da'ayaan roob ahaan oo waxay ugu soo dhacayaan sidii falaad daad bay u imaanayaan markaas biyo ka yeelayaan marka waxa ay kala tahay qaabka oo dhulka oo biyuhu u kala yihiin baaba waxay tahay qaabkaas ground waterka biyaha ah river kuwa ah oo meel ayagu joogo meeshaas yaqaana oo meeshaas ku jira lake oo ayaguna meel saaran oo meel ku jira iyo harooyin kale iyagana oo meel ku jira waxaa jira marka iyaguna biyo la dhaho inland water baa kuwaas oo dhan la isku dhahaa islands kuwa macnaha meelo yar oo waxa jira sida island oo kaleeto u go'an oo biyahaas ku jiraan oo annaga dhulkeena waxaa laga dhahaa meelo macnaha meel baliyaha bali waa yaryahay mid ka weyn ah waxaa weeye washaaqo ayaa laga dhahaa gobolada Jubbaland washaaqooyinka iyo dhashiiga la dhahaa marka meelahaas oo kaleeto ay ku jiraan xagga aquafarka meesha marka qaybteeda laga tago weeyaan qaybta kale oo banaanka usoo baxsan biyaha soo baxsan waxa kale ay kusii jiri karaan marka meelaha Englishka ponds and boreholes la dhaho oo barkado iyo meelo biyo dhacaan ah iyo ceelasha iyo maxay tahay webiyo yaryarowga iyo baraha kaleeto oo biyo dhaca oo dhan intaas marka ay ku yimaadaan biyuhu waxaa meesha ku jirta sidee biyahaas aan uga faa'iideysan karnaa si aan wax u beerano oo maxay tahay oo xoolihii deeq u siisano oo dad u noqono sidee baan biyahaas uga faa'iideysan karnaa arrintaas inaan galno baa loo baahan yahay arrinta iyada ah marka waxay tahay waxaa jira waxa la yiraahdo holistic management oo la xiriira si looga hortago climate change-ga holistic management waxa weeyaan maamul isku dhammaystiran oo looga hortagayo isbeddelka cimilada ayaa la sameynayaa oo looga hortagayo nabaad guurka kaas si loo marka la sameeyo oo dhulka taa laga diyaariyo baa cirka roob ka soo da'aya horta kow biyahaagi dhulkana aad kaydsanaysaa aad calfanaysaa haddii aadan kuwaa sameynin oo biyihii dhulka marka koowaad biyihii ay ummadda hadda maanta wada cloud seeding sameeyaan oo ay beertaan daruurta oo haddana rain harvesting sameeyaan roobka in miro ahaan loo gurto sameeyaan haddaad taasoo dhan ka qaday haddana markii waaye kuwii lagu soo dejiyey haddaad haddana maamulan weydo ayagana way kaa tegayaan marka ay kaa tagaan waxaad noqonaysaa qof markaas meel dhexe ku lumay waxaad noqonaysaa qof macnihii ilaahay intuu miiska u soo saaray cuntadii haddana cuni waayey ayaad noqonaysaa taasna waxay u baahan tahay maskaxda oo la dejiyo iyadoo miyir la leeyahay dadka aqoonta leh in laga faa'iideysto waxna la barto kuwa aan maxay tahay lacagleyda tijaartana ay waxyaalahaas ay maalgeliyaan
oo ay faa'iidooyin ka helaan marka qaybahaas oo dhan waa noo soo socdaan laakiin haatan aan ku bilaabo waxa la yiraahdo holistic management oo ah macnaha si looga hortago land degradationka waxa dhulka oo dulooba ama dhulka oo dufooba sida looga hortagi lahaa taas waxa weeyaan qaababka ugu horeeya waxay tahay horta waxaa la isticmaalaa waxa la dhaho micro iyo macro catchment water catchment biyo qabashada midda weyn iyo midda yar marka biyo qabashada weyn iyo biyo qabashada yar baa qaabkaas la isticmaalaa biyo qabashooyinkaas marka meelaha biyaha lagu qabanayo waxay tahay biyahaas kuu soo da'ay roobka kuu soo da'ay waa aniga erida roorta in laga faa'iideysto oo majaroor iyo la samaysto oo guryaha inta la dhigto markaas cid walba gurigeeda ay geedo waaweyn oo geedaha ka baxa webiyaalka ka baxa meesha laga samaysto si magaaladeena qurux u hesho reerkaasuna aysan qudaartooda suuq xataa kasoo adeegan shilina ka baxin ay meeshooda uga cunaan balse markay badato ay dhoofsadaan oo shirkado inta yimaadaan deriska oo dhan ay ka qaataan cambayaalkii mooskii waxay abuurteen dhan ay meesha ka qaataan warshado lagu sameeyo intaasoo dhan marka iyada oo la samaynayo waxaa la rabaa micro management meeshii ku habboon meeshii kaloo ku habboonna macro management in la sameeyo maxaa ka mid ah dhulkii in la diyaariyo weeye dhulkii si loo diyaariyo oo kaleeto waxaa la samaynayaa dadka dowlad inay samaysaa ama shirkado waaweyn baa la rabaa buuro yaryar in la sameeyo buurahaas oo xoogaa marba intay leegyihiin buurahaas oo roobka marka horeeto horta uu ka qaadanayo macnaha evaporationka halkaas ka qaadanayo kow marka dambena roobka uu soo da'ayana iyagu roobkii soo jiidanaya markay saa usoo marka hore iyagaa sii daayey dabadeedna iyagaa soo jiitay korkoodana geedo badan oo geeda oo macnaha forestry geedaha la waaweynka baa laga beerayaa geedahaas oo iyaguna markaas roobkii soo qabanaya qaabkaas isaga ah oo markaan qabto micro systemka horta waxa u kala baxaa ilaa dhowr nooc weeyaan laakiin taasaa kow ah laba waxa ah in dhulka laga dhigo haddana meel dalcad ah iyo meel degaandeg ah dalcad iyo degaandeg ayaa la sameeyaa waxa weeyaan dhulka meesha derida leh weeyaan dhulka meesha derida leh oo waxa weeyaan dabacsaan oo ah meesha sidaan xoogaa hoos u degsan iyo meesha sare marka biyuhu kusoo da'aan waa dibir waxa weeyaan way soo daynaysaa biyihii markay soo dayso waxay tegaysaa dhulka meeshiisa derida leh oo dabacsan markay halkaa kusoo da'do halkaas waxay noqonaysaa dhulka cagaarka ah sidaas marka qaabkaas ay usoo dhaco dhulkii la kala qaybiyo waxaa la samaynayaa oo kaleeto dhulka iyada oo buuraha lala beegsanayo ayaa waxaa la samaynayaa meelo oo streams la dhaho luuqyo yaryar oo ay webiyadu maraan webiyarow la dhaho ayaa la abuurayaa waxaa kaloo la abuurayaa meelo badan markay isaga yimaadaan meesha oo biyaha luuqyana xagga ka yimaadaan luuqyana xagga ka yimaadaan baa meel dhexe waxaa la abuurayaa wax bonds ah ama meel weyn oo ah macnaha biyahaas ay isugu yimaadaan waa meesha dhashiigga marka la dhaho dhashiiggaasaa la abuurayaa dhashiiggaas macnaha annaga dhashiigyo ilaahayna siiyey baan haysanaa xataa oo aan iska ognahay laakiin waxaan dhahnaa ilaahay baa sameeyey sidaan laakiin adigaba waa arki kartaa cagaf haddaad soo qaadatid aad dhulka sintid waa kuu saalan tahay marka waxa waye ilaahay wuu samaynayaa laakiin ficil kastaba ilaahay wuu sameeyaa oo ilaahay baa waa fasaxa marka taa ogow adiga ayaa lagaa rabaa inaad la timaado ficil dhaqaaqi biyahaas marka sidaas ah qaybta oo aquiferka ku jirta aquiferka waxa weeye meelaha waa gal dhexe oo ay biyahaasi ilaahay kusii kaydiyo bal dadkaas inay usoo baahdaan intii maalmaha roobku da'ay sida haddeer oo kale intii ugu horreysay korkaan biyo ka aroornaa korka biyaha korkiisaan ceelka dhulka korkiisaan ka qaadanaa markay naga dhammaadaan marka in yar baan qodnaa maxay tahay hal tallaabo iyo waxbaan sii qodnaa marka aan sii qodno xoogaa meeshaas baa aquiferka iyo ilaahay ku kaydiyey haddana hoos marka loo sii kaco ayaa ground water ay noqonaysaa biyaha kuwii hore surface water bay ahaayeen waxaa ku xiga markaas aquifer water waxaa ku xiga ground water biyihii oo dhulka u tegaysaa markaas biyaha dhulka baa marka soo jiidisteedu ayadu mar walba waxa weeyaan hadhow markaan gobol walba goonidiisaan uga hadli doonaa insha allah markaan gobol kasta ka hadlo waxaan soo saarayaa haddii allah idmo in gobol walba waxa inta biyihiisu ay jiraan iyo inta laga soo qaadan karo iyo sida in kale loo sii kaydin karo iyadoo la qiyaasayo roobka kale marka uu ku imaanayo
biyahaas marka oo la soo qaadanayo oo waa surface-kay kasoo tageen xudidaha geedaha hoos waaweyn iyo hoostooda soo galeen groundkii bay soo galeen marka intaas oo dhan ka buuxsamaan ayaa waxaa la isticmaalaa waxaa la dhahaa managed aquifer recharge method managed waxa iyadoo la maamulay aquifer recharge method in dib loo kaarikeeyo biyihii meesha ku jiray baad recharge ku samaysaa dhulkii baad recharge ku samaynaysaa oo dhulkii baad dib u noolaynaysaa dhulkii ilaahay markaa uu jiray biyahan kusoo dejinaa waa noolaynay roob markuu ilaahay soo dejiyey intii kale way sii hayaa adigaa mar kale dhulkii noolayn karaa marka oo dhulkii intaad biyihii hoos ku jiray ground waterka ku jiray aquiferka ku jiray soilkay hoos moistureka ahaa meesha kasoo qaaday marka intaas biyihii baad soo kicinaysaa markaasaa waxaad ka dhigaysaa dhulkii green markasta cagaar kasoo dhigaysaa markaasaad biyihiina halkaas ka qabsanaysaa qaabkaas waa qaabka loo sameeyo weeyaan marka way kala tahay surface method mid kale oo dhul korkiisa laga sameynayo iyo mid la sameeyo internal modification oo gudaha midda kusii jira qof markuu hoosta ka buko soo irbad laguma mudo irbadaas lagu daro lagu mudo sidaasoo kale dhulka yaa wax ku mudaysaa biyihii waxaa jira qalab inta sidaa loogu mudo biyaha meel heblaayi meel heblaaya kusoo jira lasoo dhuuqi karo markaas oo saa loo sameeyo waxaa macnihii jira meel walbaba qaababkaas buuro oo macnaha aan kasoo qaadan karno biyaha oo nagu dhodhow ama nala mid ah baa jira waa deep systemka waxa la dhaho haddana waxaa la samaystaa infiltration waxa la dhaho biyihii oo dhexda biyaha ku jira ayaa dhulka dhexdiisa waxaa laga sameynayaa biyo xireenno biyo xireenno kor baan maqli jirnay laakiin biyo xireenno dhulka hoostiisa ah oo ground waterkii ayaa meel lagu kala xanibayaa la kala dejinayaa tusaale haddaan usoo qabta aniga haatan magaaladii aan ku dhashay Caabudwaaq waa la dhahaa magaalada Caabudwaaq 25 kilomitir ku dhawaad meelahaas waxaa u jira buur weyn oo la dhaho Burgoosole oo buuro kalena ay ku sii taxan yihiin oo ciirood la dhaho buurahaas iyaga ah waxay xoogaa qaabkoodu yahay u egyahay inay xagga usii jeedaan xaggaa kale markay saa usii jeedaan marka biyihii bay xaggaas usii daayaan markay xagga u daayaan waa dadkanu mar walba Ethiopia tagaan lasoo laynayo oo soo cararayaan geela la sii cararayaan xagga taasoo kaleeto waxaa la samayn karaa dhulkaaga adoo jooga in aad dhulkaaga ka diyaariso qaab ay biyahaasi xagga ugu soo jeestaan oo ay halkaas ay laga nuugo waxaa jira sharciyo marka adduunka oo ah sida biyaha loo qaybsado oo water law baa aad u badan oo jira laakiin annaga markasta nala kaga xadgudbo sharciyadaas iyadoo la raacayo si xaq ah oo sharci ah in looga faa'iideysto biyaha dhulka meelihiisa oogada ah ee sare ka imanaya qaabkaas biyahaas marka saa u imaanaya baa waxaa la rabaa dhulkeenu sidiisaba waxa u qaybsamaa sidaan mar sii sharaxi doono waxa u qaybsamaa oogo iyo deex iyo berin iyo maxay tahay iyo meel gubad iyo hawd waa naqaanaa waa iska hawd duurka ah gubanna waa dhulka guban oo iska qalalan oo waxyaalo kale isagana looga faa'iideysan karaa maxay tahay waxa kaloo jira marka dhulka oogo la dhaho oo sare oo biyuhu kasoo daataan iyo dhulka deexda la dhaho taqaanaan oo arigu uu ku dararo qaabkaas dhan baa marka ay biyihii looga faa'iidayaa biyahaas sidaas marka looga faa'iideysan karo kow annagu hadda Soomaali haddaan maanta waxaan u baahannahay biyihii haddaananba soo beeran karinin oo aanan daruurtii beeran karinin bal waaya inta ilaahay noo dejiyey aan maamulano oo maaraysano oo maxay tahay nidaam oo kaydsanno oo ilaashano intii haddana hadday naga sii fakadaan oo haddana kuwii korena qolooyin baaba naga dhaco kor ka dafa biyi roobka imaanayay kuwii hoosena hoostaa qolooyin kale sii dafi karaan ama ayagii baaba daad noqonaya oo daadadkaas oo dhan qaab loola macaamilaa jira qaababkaas in aan nidaamino oo baranno insha Allah wixii tabartaya waan sii sheegi doonaa laakiin waxaan rabaa in qaabkaas aan isla garanno kadib waxaan usii dhaadhacayaa barnaamijka qaybtiisa wixii ubucdiisii weynayd oo ah in aan dhulkeena sida u barwaaqaynaa marka insha Allah waxaan sameynayaa qaybta soo socota biyaha intaas hadda aan ku ekayno biyaha sida loo kaydsado qaabab badan bay leedahay qalbiyo badan bay leedahay waan insha Allah gudageli doonaa laakiin waxaan sii wadayaa anoo tan usoo noqon doonaa
in aan beerihii sidee wax loo beertaa beerashadii oo gobol ah ayaa inoo ballan ah iyo gobol walba waxa ka baxa iyo waxa ugu dhow oo ka bixi kara iyo sida looga faa'iidi karo sidaas baan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad igala socotaan mar walbaba meel walba haddii Allah uga dali kara la ahaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh